kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo isniin ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah weerar kale oo muqdisho ka dhacay iyo askar lagu dilay halkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ciidamo nabad sugid ahi ayaa lasoo gaaday islamarkaasina gudaha waaberi magaalada muqdisho lagu dilay ugu yaraan ilaa 3 qof ayaa maanta lagu dilay gudaha degmada waaberi ee gobolka banaadir kadib markii ay rasaas xoogan ku fureen kooxo ku hubaysan bastoolada oo weerar gaadmo ay kusoo qaaday raggaasi meesha taagnaa islamarkaasina ka tirsan nabad sugidda uu hogaamiye Fahad Yaasiin toogashada ayaa ka dhacday agagaarka buundooyinka sida ay noo sheegeen ila deegaanka ku sugan islamarkaasina raggii bastooladaha ku hubaysnaa ee dadkaasi dilay ay goobta isaga baxsadeen wararka ayaa sheegaya in 3 qof ee la dilay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda nisa gaar ahaan kuwa dhar cad ah ee loo yaqaano ilaalada shacabka sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay baxsadeen ragga ka dambeeyay falkaasi waxaana goor dambe goobta tagay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxa magaalada muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah amniga kuwaas oo u badan dilal qorshaysan oo qaarkood ay sheegtaan al-shabaab halka labada ciidan ee dowladda federaalk Soomaaliya ka wada tirsan ee halkaas isku xasuuqan shalay ay ahayd markii ciidamo booliis ay ku militariga ah ee rasaas ooda isaga qaadeen isla markaasina dad shacab ah oo goobta joogay labada isdagaalay ayay waxyeello soo gaartay si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay ammaankeeda faraha ka baxayay isla markaasina ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa inta badan isxasuuqo dhinaca kale xilliga la soo gabagabeynayo dhismaha laamiga isku xira muqdisho iyo afgooye oo la shaaciyay waxaa heer gabagaba ahay maraya dhismaha laamiga dheer ee isku xira magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana dhismaha laamiga maalgelinaya dowladda qatar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xalay kormeer ku tagay dhismaha laamigaasi si uu u qiimeeyo halka uu marayo dhismaha laamiga ahi Cumar Finish ayaa sheegay in laamiga isku xira muqdisho iyo afgooye loo dhisay laba dhinac waxa uuna xusay in xilligaani gabagaba uu marayo dhismaha laamiga ahi oo muddo dheer socday waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir in dhismaha laamiga oo muhiim u ah isku xirka gobolka banaadir iyo shabeellada hoose la soo gabagabeyn doono muddo 2 toddobaad gudahooda ayuu yiri dhismaha laamiga isku xira magaalada muqdisho iyo afgooye ayaa qaatay muddo ka badan intii la filayay waxaana loo sababeeyay xaalado ammaan darro iyo in marar badan la weeraray lana dilay ajaanib iyo shaqaale waxaa la ogaa in qarax lagu dilay rag ka tirsan dadka jidka dhisayay oo ka socday Turkiga isla markaasina injineer ah ay halkaasi ururka al-shabaab ay ku dileen iyo shacab aad u fara badan oo ah dhalinyaro iskuul u socotay si kastaba ha ahaatee in badan ayaa la hakiyay dhismaha wadadaasi maadaama ururka al-shabaab qaraxyo iyo dagaal toos ah ay ku soo qaadayeen shaqaalaha halkaasi ka howlgalayay iminka ayuu sheegay Cumar Finish in la gabagabeynayo dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe isla markaasina ka qayb galaya shirka ay joogaan Mahdi Xasan Sheikh iyo dowladda inteeda badan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobi wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray Garowe si heer sare loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe Axmed Madoobi wafdiga la socday waxa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xildhibaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi Puntland madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa u tagay magaalada Garowe ka qaybgalka shirka madasha aragti wadaaga ay ka soo qayb galayaan madaxda sarsare ee dalka waxaana shirka sidoo kale ka qayb galaya madaxda musharaxiinta mucaaradka sidoo kale maanta waxaa gaaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo wakiil ka ah ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweyne Farmaajo magaalada Garowe waxaa horey ugu sugnaa qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Galmudug iyo siyaasiyiin kale oo lagu marti qaaday ka qaybgalka shirka berri ka furmaya Garowe ayaa halkaas isku arki doona mucaaradka iyo muxaafidka si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi wixii ka soo baxa ay inta badan musharaxiinta iyo dadka ka soo horjeeda dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dhaqmi doonaan si kastaba ha ahaatee madaxda maamul goboleedyada qaar ayaana halkaasi tagi doonin xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo amar diido cusub ku sameeyay filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo isla markaasina shuruud ku xiray fulinta qorshaha cusub ee dowladda federaalk Soomaaliya ay doonayso isla markaasina dhabarka u jeediyay 26 bishan oo ku beegan sabdidii waxaa lagu ballansanaa in xarumaha dowlad goboleedyada dalka ay ka bilaabato diiwaangelinta musharaxiinta golaha aqalka sare ee ku eeg 29 bishan sida ku cad jadwalka uu dhawaan soo saaray guddiga lagu muransan yahay
ee doorashooyinka qaranka. xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in madaxweynaha galmudug uu ka biyo diiday in maamulkiisa uu hadda guda galo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maadaama culeysyo aad u fara badan iyo dagaal xoogan oo ka taagan yahay. qoorqoor ayaa shalay gaaray garowe halkaasi oo uga qayb galayo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay isugu imaanayaan inta badan dhinacyada isku haya doorashooyinka dalka sida madaxweynayaasha puntland, jubbaland, galmudug, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo golaha midowda musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiin culculus. madaxweynaha galmudug ayaa la sheegay in villa soomaaliya ay cadaadis ku saartay in uusan ka qayb gelin shirka garowe ka socda beddelkeedana uu maamulkiisa dedejiyo doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee kasoo galaya deegaanada galmudug. hase yeeshee qoorqoor ayaa iska diiday dalabka dedejinta ahi ee villa soomaaliya ay damacsan tahay wuxuuna ku adkaystay in go'aanadiisa ku salayn doona wixii la isku afgarto ee kasoo baxa shirka ka dhacaya garowe islamarkaasina mucaaradka ugu xoogan halkaasi ay joogaan. maalmihii dambe madaxweynaha puntland iyo galmudug ayaa ku sugnaa magaalada gaalkacyo waxayna gaareen heshiisyo ay isku mid ahaayeen inay xal u raadiyaan khilaafka ka taagan doorashada taasi oo macnaheedu yahay in haddii uu qoorqoor guda galo doorashada uu jebinayo heshiiskaasi. ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka iyada oo lagu bilaabayo xildhibaanada aqalka sare xilli aan weli xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamulada qaar iyo mucaaradka ugu culus dalka. doorashada aqalka sare ayaa la sheegayaa in ay ka bilaaban doonto magaalada baydhabo kadibna lagu cadaadin doono madaxda galmudug iyo hirshabeelle si ay ugu xijiyaan dhuusamareeb iyo jowhar waxaana magaalooyinkaasi qaarkood la geyn doonaa ciidamo kale oo dheeraad ahi. jadwalka doorashada ayaa dhigaya in xildhibaanada aqalka sare la doorto 30 bisha ilaa 6 janaayo waxaana xog ay heshay calansida media ay sheegaysaa in maamulka koonfur galbeed uu bilaaban doono. dhinaca kale war culus maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha oo la kala diray. waxaa goordhow si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee hadda jira iyada oo la magacaabay maamul kale oo kumeel gaar ahi. sababta waxaa lagu sheegay xaaladda cakiran ee ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo in dib u habeen lagu sameeyo rugta ayaa go'aankaasi la gaaray. waxaa si kumeel gaar ahi loo magacaabay guddoomiye 2 ku-xigeen iyo 30 xubnood oo matalaya ganacsatada soomaaliyeed. cabdulaahi nuur cusmaan oo ka tirsan hormuud ayaa guddoomiye laga dhigay halka cabdiweli maxamuud warsame iyo cali xasan oo ka kala socda somtel iyo almoha general sida ay u kala horeeyaan laga dhigay guddoomiye ku-xigeenadooda. maamulka kumeel gaarka ahi ayaa waxaa loo qabtay inay muddo 60 cisho ahi ku qabtaan doorasho. dhinaca kale wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo gaaray garowe islamarkaasina ka qayb galaya shirka mucaaradka oo dhinac ka fadhiyo. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen magaalada garowe ee caasimada puntland iyada oo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey. wafdiga ayaa waxaa garoonka dayuuradaha magaalada garowe kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo qaar ka tirsan labada gole ee puntland. wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa ay magaalada garowe ka qaybgeli doonaan shirka madasha aragti wadaagga ee maxadka heritage oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kale waxaana shirka ka qayb galaya madax isugu jirta muxaafad iyo mucaarad. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada garowe gaaraan xubno kale oo ka mid ahi madaxda lagu casumay iyadoo si weyn loo ilaalinayo amniga magaalada garowe islamarkaasina ciidamadii ugu badnaay ee garowe ammaanka u qaabilsanaay ay taagan yihiin wadooyinka iyo aagga shirka uu ka dhacayo.